maxkamadda sare ee magaalada Port Elizabeth ayaa waxaa ka bilowday dacwad u dhaxaysa jaaliyadda Soomaalida ee degan gobolka iyo hay'adda sharci-siinta ee Home Affairs ee dalkani iyadoo hore u shaacisay hay'adda inay xiri doonto xafiiska ay ku leedahay magaalada Port Elizabeth waxaana sidoo kale ka qayb galay dacwadda hay'adda Human Rights Watch iyo culimada dalada Albayaan. maxkamadda oo dhowr saac socotay ayaa ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyay in la isugu soo laabto ilaa laga gaarayo 19 bisha. dhanka kale waxaa shaacisay maxkamadda in ay sii furnaato hay'adda sharci-siinta inta laga gaarayo muddadaasi. waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Eastern Cape Muxiidiin Nuur oo ahayd markii labaad oo la fuulnay maxkamadda weyne High Court Port Elizabeth Home Affairs dibana loo dhigay waxaa laga dhigay 19 April. insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan haddana aan guuleysano si oo mar horay baan u soo guuleysanay markii labaad oo ay sideen in dib loo dhigo. haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa in marka labaad aan ku guuleysano. waxaan u mahadcelinayaa dadka reer Port Elizabeth nin inaag iyo caruur iyo dhalinyaro sida wanaaga ugu soo qayb galeen mudaharaadka ka dhacay Home Affairs hortiis shalay. dambeena waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha culimada hay'adda Albayaan ee gobolka Eastern Cape Sheikh Shaakir Sheikh Abdullaahi. intii hadda waxaan joognaa maxkamaddii weyneed ee High Court ee gobolka laga maamulayay runtii iyadana looyaro badan oo human rights u badan baa isugu yimid go'aan adag ayaa laga gaaray oo ku guuleysanay dadaalkaniga inaan hawsha qabano. Home Affairs dib baa loo dhigay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa Abriil yaa dacwada postpone lagu sameeyay kiiska isaga intaan sii furnan doonaa sharcigiisa toos loo qaadanayaa. maalmo ka hor markii banaanbax ay ka hor sameeyeen Soomaalida degan gobolka hay'adda sharci-siinta ee Home Affairs ee magaalada Port Elizabeth iyaga oo dalbanay inaan la xirin xafiiskan marka la xirana ay ku dheeraan doonto halka ay sharci u doonaan. Cabdixakiin Ibrahim Cawaale, Somali Sat TV, Johannesburg, Koonfur Afrika.